السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن ونكسن داوديال كسر هذا قضبة وركينا ودور كروح اللي تبنتين مدحينها الصومالي حسن شيخ محمود يقول به رزالة حمزة عبدي بري oo soo farageliyay dhacdadii ka dhacday magaalada Boosaaso madaxdii hore ee Puntland oo cidda mas'uuliyadda qaadaysa dhacdadii ka dhacday magaalada Boosaaso cadeeyay dowladda UK oo shaacisay waxa ay ka yeelayso Muha Farax kadib qirashadiisii ahayd in dalka uusan si sharci ah ku soo gelin isla markaasina baasaboor aan waxba ka jirin lagu soo geliyay labadii kulan ee dhaxmaray Farmaajo iyo Benjamin Netanyahu aad loo hadalhayo iyo waliba sidoo kale kulan kale oo qarsoodi ah oo isagana Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeeshay Israa'iil dhammaan qodobadaasi waxaan halkan ku falanqeyn doonaa iyagoo dhameystiran iyo kuwa kale waxaana barnaamijkan igala qayb galaya saaxiibkay Gooni oo arrimahana si wanaagsan ula socday Gooni marka hore soo dhawow hadii aan ku bilowno magaalada Boosaaso waxaa ka dhacday maalin dhaweyd dhacdo aad looga argagaxay taasi oo dhimasho iyo dhaawac inta mataqaanay ay lahayd markii loo eega dhacdadaasina waxay daba socotay baa la yiri dhacdadii ka horeysay ee saas kale Boosaaso dagaalka ku dhaxmaray ciidamadii BSA kuwii dawladda madaxweynaha Soomaaliya iyo Xamse iyagoo mataqaanay calaaqad wanaagsan aan la lahayn Puntland haddana faragelin ay maanta ku soo sameeyeen arrinta iyada marka qaab noocay ah ay mataqaanay u waajihi doonaan Xasan iyo waliba Xamse Cabdi Barre cukaash horta marka hore waa mahadsan tahay magaalada Boosaaso shaqaqo ee ka dhacday waa shaqaqadii ugu xumeed ee ka dhacday maadaama diyaarad 18 kartoon oo gargaar ah oo la yiraahdo buskudka kuwa la dhuuqdhuuqo ayaa meesha la geeyay marka 18 kartoon waxa u dhimatay 18 qofood arrin la yaab la ay noqotay marka dhibaatadaas meesha ka dhacday kadib faraha ayaa la isku fiiqay Sacdiyo inay hadashay rabto shir jir aad qabatay oo xalay ay ka hadashay dhacdadaasi waxaana baajiyay Ra'iisul Xamse iyo madaxweyne Xasan Maxamuud waxayna isku dayeen in arrinta ay guda galaan ay qaboojiyaan waxay xiriir la sameeyeen gabadhay waxay dhahday waxa lagu dhahay jooji barnaamijka hadda awoodid waxba live ha soo gelin jooji warbaahinta marka way joojisay kadib waxay xiriir la sameeyeen Said Cabdullaahi Dani oo kala hadleen arrinta iyo dhibaatada meesha ka dhacday ugu dambeyn dalka dibadiisa ay ku maqan yahay xiriirka ay la sameeyeen waxay ka codsadeen in xaaladda la qaboojiyo dhibaatadan la joojiyo marka faragelintii ay sameeyeen oo ku guuleysteen dadaal fara badan ayaana wali socdo ilaa Puntland ay xiriir la sameeyeen marka dhibaatada meesha ka dhacday dhacdo aad u xun waaye waana isla dhibaatadii tii camal oo ciidamada BMBF ka la yiraahdo iyo ciidamada BSF la yiraahdo labadaas ciidan ayaa isku dhacay oo ka wada tirsan Puntland waxaa dhacdaas sidoo kale ka hadlay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Puntland sida Faroole iyo Cabdulle Gaas labadooda matana waxay sheegeen mas'uuliyadda cidda qaadaysa dagaalkii hore markii uu dhacay saan oo kale ayay uga hadleen Said Cabdullaahi Dani tani markii uu Puntland u qabtay intaas oo isku dhacyo ayaa mataqaanay dhaxu maray ciidamada dad badan oo ku dhamaadeen Said xagee ku wada Said Cabdullaahi Dani xagee ku wada Puntland wallahi Said Cabdullaahi Dani Puntland meel wanaagsan uma wado sababtoo dawladii hore ayuu la dagaalay 3 sano ugu dambeysay dagaal ay ku hayay Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo dawladiisa iyo Xasan Cali Khayr madaxda ka ahaayeen ugu dambeyntii dagaalku uu ku dhameystay oo soo sharaxay uu ku guul dareystay Ra'iisul Raadi uu ku guul dareystay dhaqaale fara badan ayuu burburiyay marka ninka la yiraahdo Said Cabdullaahi Dani meel wanaagsan Puntland kuma wado waxaan u maleynaa in hadda Puntland hadda markan uu dhaafo inaysan mar kale soo laaban doonin sababtoo xaaladiisa meesha uu geeyay aad u xun tahay una maleymaayo Said Cabdullaahi Dani inuu horumar wanaagsan Puntland u keeni doono dawlad walba imaadana uu la dagaalaa haddana waxa leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud dagaal culus ayuu ku hayaa oo tii hore tanaba iga daran uu taagan yahay cukaashow marka u maleymaayo Said Cabdullaahi Dani inuu meel fiican Puntland geyn doono maxay ka dhaheen Faroole iyo Gaas arrinta iyada Faroole iyo Gaas horta hadalkooda intooda badan wuxuu ku socday dawladda Soomaaliya eedana waxa la dusha laga saarayay Sacdiyo gabadha la yiraahdo oo baarlamaanka ku xigeenka ah marka waxay dhaheen gabadhaas ayaa dhibka dhan keentay ayagana waxay u nisbeynayaan kolba inay Puntland eedeeyaan ay ka cararayaan laakiin gabadhaas si shakhsi ah waxay tiraahdaa anigu la xiriiray duq magaalada Boosaaso xiriir la sameeyay raashin inaan wax badan oo macaawino wadan oo u sheegay marka wixii isku dhib ay noqotay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ninka yiraahdo Galaan ayaa asagana ka hadlay wuxuu sheegay gabadhaas wax xiriir inaysan Puntland la soo sameeynin marka waxa isweydiin mudan maadaama isheeg leeyahay xiriirna lama soo sameeynin si ku ogaadeen diyaaradda inay ma rabto diyaaradda wali soo deganaa dagaal meesha ka dhacay marka xog waa la hayay laakiin wixii waa la isku dhibay cukaasho waxaa jiray eedeymo soo baxayo oo tukusinayo in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo uu kulan qarsoodi ah uu 2 jeer waliba inuu la yeeshay ra'iisul hore dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu arrintaas maxaa ka jira والله عكاشو أرنتاس وعلى سلاح مرة لكن ورجيس كترسن إسرائيل تامس ليرادو يا سوقر وركاس ورجيس كوقف در دلك إسرائيل مجال تل أبيب أيوك صباحا
marka waxay leeyihiin 2018kii ayuu wuxuu la kulmay Benjamin Netanyahu xiriir in la xiriir wanaagsan oo dhexmaro ayuu ku dadaaleen macnaha Benjamin Netanyahu ayaana ka codsaday in Soomaaliya iyo xiriir oo dhexmaro ay sheegeen Israa'iil laakiin waxaa leeyahay Donald Trump oo markaas madaxweyne ka ahaa wadanka ayaa diiday wadanka Mareykanka wuxuu diiday in Soomaaliya ay tahay wadan fiican inuu soo wadan qurmay oo yahay marka wuxuu ka cararayay inay dadka isheeg ay ka qayb galaan wadamada horumaray inay xiriir la yeelato ayuu diidayay sababtoo asaga waxaa dagaal ku heysay gabadha Ilhaan Cumar oo xildhibaan ka tirsan sanadka Mareykanka marka aad iyo aad ay uga hortagaa leeyahay oo fashilmay markaas haddana mar labaad ay kulmeen oo waxaa leeyahay 2020ga ay haddana kulmeen kulankaas haddana waxaa dhexmaray isheeg labada wadan xiriir marka waxay ka wada hadleen inay iskaashadaan laakiin hadda wargeys ayaa qoray warkaas xiriir rasmi inay dhexmaray lama cadeyn karo maxaa Cabdullaahi Farmaajo laba jeer inuu Israa'iil tago lama cadeyn karo laakiin ilaaha naga og laakiin u malaymaayo inay taas sax tahay wargeyska wuu qoray war kale far badan labadan maalin ayuu qoray Cukaasho xasan sheekh maxamed muxuu ka qoray isagana walaa xashin maxamuud wuxuu ka qoray horta dadka Soomaalida waxay isla dhexmarayeen xashin maxamuud markuu Imaaraadka joogay inuu xiriir la sameeyay Israa'iil oo xataa uu tagay wararka suuqa uu ku jirtay laakiin asaga wargeyska Israa'iil oo imaado ma dhihin laakiin wuxuu dhahay xiriir telefoonka ee dhexmaray Benjamin Netanyahu iyo xashin maxamuud markuu xiriirka dhexmarayna sheeg telefoonka way ka wada hadleen qaabkii ay xiriir u wada yeelan labada wadan safaaradana ay labada dhinac kala geysan lahaayeen marka xiriiradaas ayagana waxa waaye wuu ka hadlay laba bir ka hor ayuu taas ka hadlay haddana Farmaajo ka hadlay marka wargeyska waxa malaysaa xiriir wanaagsan oo haddana maalin dhawaato ka hadlay wuxuu dhahay Soomaaliland xiriir nagal dhexeeya marka waxaan waxa la ogaan karo iyo wax saxdooda lama oga in Soomaaliya tush loo gelinayo oo maadaama Israa'iil ay necab yihiin shacabka Soomaaliyeed taas ayaa laga yaabaa oo waxaan dhan ay waxba ka jirin Cukaasho waxa uu kulan u furmay madaxda Soomaaliland mucaaradka iyo waliba xukuumadda iyadoon ogeyn in maalmihii u dambeeyay uu jiray khalkhal siyaasadeed Soomaaliland shirkaasi ma noqon doonaa mid lagu guuleystay maxaa looga hadlaya walaa Cukaasho aad iyo aad rajo wanaagsan ayaa laga qabaa kulanka maanta uu qabsamay waji ka waji ayaa la isku arkay gudoomiyaha iyo golaha guurtida iyo gudoomiyaha saddexda xisbi way wada joogeen marka isku soo dhawaansho ayaa la muujiyay markii laga wada hadlay dhibaatadii dhacday iyo wixii isjiidkii ka bacday waxaa la go'aansaday in magaalada sheegeen Hargeysa beri oo Khamiis haddana mar labaad lagu kulmo kulankan intaan laga bilaariyo marka waatii meeshii dhibaato far badan ay ka dhacday dhibaatadii in lasoo afjaro oo lasoo dhaweeyo xaaladda la qaboojiyo weji ka wajina la isku arko oo sheeg jawi degan ayuu kulanka ku bilowday marka waxaa la rajeynayaa inay sidoo hore ka wanaagsanaato isku soo dhawaadaan mucaaradka iyo muxaafidka hal meelna wax wada jehayaan Soomaaliland isjiidkii iyo dagaaladii iyo isqabsiga faraha badnaa in laga gudbo oo meel wanaagsan ay ku dhamaan doontaa la rajeynaa Cukaasho dowladda UK waxa ay shaacisay waxa ay ka yeelayso Muha Faarax oo maalmadii shalay cadeeyay in dalka uu ku soo galay si aan sharci aan ahayn arinta ay ku dhawaaqday muxuu yahay walaa horta dowladda UK sheegishiis ka bacdi inuu wadanka si qalad ku soo galay inuu ilmo yar ahay in qof Soomaaliya haweeney ay keentay in Djibouti laga soo qaaday waxaas oo dhan markuu sheegay ka bacdi wixii dowladda UK way dhageysatay in baasaboorka inuu si sharci darro ku qaatay in si aan wanaagsaneyn oo wadanka ku galay wixii dhan way dhageysatay laakiin waxay dhahay ninkaas anaga wax sharci aan ka qaadayno tilaabo ah ma jirto waa nin wanaagsan waa nin halgamay ah marka waa nin lagu faano ay leeyihiin maadaama bilado 4 jeer oo bilad u qaaday wadankaasi oo marka matalaya Britishka marka waxaa leeyahay waa ninkan waa nin heer sare nin ay ka maarmaan ma aha dhalashana kalama laaban karaan marka dowladda UK waxay dhahday wax tilaabo ah oo Maxamed Faarax aan ka qaadayno ma lahan ma fahanti haddii arrintaasi Muha Faarax weli aan kusii dhex jirno qoyskii gumaystay dhibaatada badan u geystay isla markaasina qaabka adoonsiga uu ku haystay maxaa laga yeeri doonaa والله taas hadda dowladda kamaysan hadlin laakiin haddii asaga oo dacwada sii dheereeyo oo maxkamad geeyo inay qoyskaas dhibaateeyeen oo caruur oo heen jiray oo la gumaysan jiray oo haddii oo cunto u baahdo inuu caruurta hayo isheeg ay ahayd barnaamijka oo ka cabaaday marka haddii taas dhacdo oo asagoo kiiska sii balaariyo maxkamadna geeyo markaas ciqaab ayay mudaysan karaan waalidiintaas haddayba joogaan wadanka aysan ka bixin Cukaasho waa maasantahay gooni daawadayaal muuqaalka tishargare asxaabtiina la wadaag intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xogihii ugu dambeeyay ee halkaan kula wadaagaynay ee dunida iyo weliba Soomaaliya gaar ahaan aan xoogaan ku saaraynay si wanaagsan haddii halkaan nala soo gaartay waad ku maasantihiin muuqaalada tishargare asxaabtiina la sii wadaaga